shabaab wax naga dhaxeeya iyo fikir naga dhaxeeya iyo qaacido naga dhaxaysa iyo xiriir naga dhaxeeya taasna shacabka waana ogyahay waana leeyahay yaqaana mana jirto waxaan kaloo jecelahay haddiiba cid dhibsatay hadalkayga waan cadeeyay waan fikirkayga mabda'ayga cadeeyay waxaan jecelahay inaan raali gelin buuxda ka bixiyo kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo alaaba aad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah boqor buur madow oo raali gelin ka bixiyay hadalkii qabsaday ummadda Soomaaliyeed ee uu ku taageeray kooxda Al-Shabaab iyo waliba boqorka oo sheegay in hadalkii uu ka sheegay kulan beeleed uu ahaa hadal kaftan ah si kalena loo fasirtay xildhibaan maareeye oo si ballaaran u taageeray boqor buur madow isla markaasina sheegay in la siyaasadaynayo boqorka hadalkii ka soo baxay lagana soo horjoodo dadaalada uu ku midaynayo boqorka beelaha direed haddaba maxaa ka jira xogaha sheegayo in la qorsheynayo boqor buur madow in maxkamad la soo taago kadib hadalkii ka soo yeeray ee uu sheegay in Al-Shabaab ay dawlad gaar ah tahay qodobada kale ee daawadayaal muuqaalka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo qaadacay doorashooyinka dalka ka socdo ilaa 7 qodob oo ay uga soo horjoodaan qaabka doorashooyinka ay u socdaanna soo bandhigay haddaba maxaa la gudboon xukuumadda ra'iisul wasaare Rooble mar haddii mucaaradka ay diideen qaabka ay ku socdaan doorashooyinka golaha shacabka xaalad xasaasi ah oo dalka uu ku wajahan yahay dhinaca doorashada ayaanu idin soo gudbin doonaa sidoo kale daawadayaal muuqaalka waxaad ku daawan doontaan ciidanka PSF oo beeniyay in heshiis ay la galeen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni qodobada iyo qaar kale oo faahfaahinaya daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelino aynu ku horeynaa daawadayaal golaha midowga musharaxiinta ayaa war saxaafadeed ka soo saaray shir maalmihii la soo dhaafay uga socday magaalada Muqdisho kaasi oo lagu hadlayay geedu socodka doorashooyinka dalka waxaana ay cadeeyeen in waxa socdo aan lagu tilmaami karin doorasho oo ay tahay boob qaawan oo dalka u horseedi karto qalalaasa siyaasadeed xasilooni darro iyo waliba nabadgelyo la'aan sidoo kale qoraalka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayaa lagu sheegay in aan lagu fiirsan karin sida ay wax u socdaan isla markaasina aysan raalli ka noqon karin boob ay sheegeen inuu ka socdo doorashada qoraalkan ayaa sidoo kale lagu cadeeyay in mas'uuliyadda wixii ka dhasha boobka doorashada ay qaadi doonaan madaxda dawladda dhexe iyo waliba dawlad goboleedyada golaha ayaa soo saaray 7 qodob oo ku saabsan khaladaadka uga dhex muuqda doorashada socoto kuwaasi oo kale ah 1 in laga tegay odayaashii dhaqanka ee xaqa u lahaa inay soo xulaan ergada dooranayo xildhibaanada 2 inaysan jirin ergo la xulay la diiwaan geliyay la tababaray guddiga doorashooyinka heer federaalna ay hubiyeen 3 in ergooyin laga dhigay shaqaalihii rayidka ahaa ciidanka dawladda iyo dad aan mararka qaar ku hayb ahayn qabaa'ilka kursiga lahaa 4 in loo diiday diiwaangelinta tartanka kursiga xildhibaannimo kuraastii hore ugu fadhiyay iyo kuwa kale ee xaqa u lahaa halka la diiwaangeliyay xubno aan soo buuxinin shuruudihii diiwaangelinta 5 in ay luntay madax bannaanidii iyo dhexdhexaadnimadii gudiyada doorashada heer dawlad goboleed kuwaasi oo toos uga amar qaadanayo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada halka guddiga doorashada heer federaalna uu ka amar qaato madaxda federaalka 6 in gudiyada labada heer aysan kala amar qaadanaynin guddiga xalinta khilaafaadkana uu gabay hawshii loo xilsaaray isagoo oo diiday qabashada cabashooyinka kuwii loo gudbiyana aan si cadaalad u falin 7 inaysan jirin korjoogteyn iyo tabin toos ah oo warbaahineed si loo hubiyo inaysan daahfurnaan u dhicin tartanka golaha midowga musharaxiinta qodobada ay soo saareen ay ku qaadacayaan doorashooyinka ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan kulan ay la qaateen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble Cusmaan Aw Maxamuud Buur Madow oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ka hadlay hadalkii uu dhawaan sheegay ee muranka badan dhaliyay boqor Buur Madow ayaa sheegay in fasiraad khaldan laga bixiyay hadalkii uu sheegay kaasi oo ku tilmaamay inuu ahaa
hadal uu ka jeediyey kulan beeleed islamarkaasina waxa uu xusay inuu hadalkaasi ahaa mid kaftan ahaan uu u dhahay. boqorka waxa uu sheegay inuusan taageersanayn cid kasta oo dhiig dadka Soomaaliyeed daadisay haddii ay ahaan lahayd qaab diimeed iyo qaab kaleba. boqorka ayaa dhanka kale tilmaamay inuu aad uga xun yahay dhibaatadii hadalkii uu sheegay loogu geystay wasiirro iyo siyaasiyiin ka soo jeedo beeshiisa ee ka qayb galay soo dhaweyntiisa. boqor Buurmadow ayaa sheegay inuusan is adkeynaynin sida siyaasiyiinta qaar, balse uu raaligelin buuxda siinayo shacabka Soomaaliyeed ee dhibsaday hadalkii dhowaan ka soo yeeray. inaan sixitaan ku sameeyo hadal aan hore uga idhi qadabeeleed runtii waxaan ka xumahay in loo jeediyey hadalkaygii meel aanu gogol dhiciisu ahayn, meel aanan u jeedin in loo jeediyey ama la siyaasadeeyey hadalkaygii. haddaan intaa ka gudbo, anugu halkan waxaan u imid nabad iyo inaan cid nabadeeyo iyo inaan isu soo dhaweeyo oo walaaleeyo, inaan shacbiga kala fogeeyo ama shacbi dhibaateeyo ama cidi dareen iga qaadato uma aan iman. waana ka xumahay in hadalkii si kale loo jeediyey. dhaqankayga aniga waa la yaqaanaa, waa nabad iyo isu soo dhaweyn weeye. waana wixii aan dhaqanka u nafarayey iyo islaamnimadu ay nafaraysay. anigu horaan u caddeeyey cid kasta oo dhiig daadisa ama dhaqan ha ku daadiso ama siyaasad ha ku daadiso ama diin ha ku daadisa inaanan mar raba anigu taageersanayn. waana laygu yaqaanay, waanan ka hadli doonin, waan ka hadli jiray. shabaab wax naga dhexeeya iyo fikir naga dhexeeya iyo qaacido naga dhexaysa iyo xidhiidh naga dhexeeya, taasna shacabka waana ogyahay, waana laygu yaqaanaa, mana jirto, mana aaminsani waxay aaminsan yihiin. taasina waxa weeyaan inaan ka hadlo fikirka. waxaan joogay oo aan ka hadlayay waxay ahayd qadabeeleed. qadabeeleedka madax dhaqanka siduu markuu isu yimaado wuu kaftamaa. kaftan beeleed buu ahaa, qadabeeleed bay ahayd, waanu kaftamaynay, waan hadlaynay. hadalkayga gundhigiisa maanta waxa weeye wax alla wixii dad ehel ahaa ee dhibaato mabaadi' loogu geystay, mid diineed loogu geystay, fikir cidi aaminsan tahay oo aanan aaminsanayn loogu geystay, qarax lagu sameeyey, la dhibay, aad iyo aad baan uga xumahay. hadalkaygaasi muu ahayn dhiirigelin aan dhiirigelinayo mabaadida aan u aqaano inay mutadarrifnimo tahay, inaanay sax ahayn aan u aqaano, inaan dhiirigelinayo maaha. xaasha, sidaa may ahayn. waan ka xumahay rag siyaasiyiin oo aniga beeshayda ahaa oo wasiirra ahaa oo aniga iigu yimi inay iskay garab taagaan oo isoo dhaweeyaan, in soo dhaweyntoodii lagu xagaagtay. hadalka aan odhanayey miday ila lahaayeen ma ahayn. wasiirrada iyo siyaasiyiinta meesha joogtay kaftan bay ahayd, kaftan qadabeeleeda bay ahayd oo la yaqaano, cid walba garan karto. wixii iga keenayna waan sheegay. waxaan kaloo aad uga xumahay in lagu xago ama lagu janjeeriyo dadkii daxiyada ahaa ama dhibanaha u ahaa dhacdooyinkii dhacay istaba joog ahaa inaan raalli ka ahay. taasina ma jirto, raallina kama ihi, waana caddaynaya si ka leeqi. haddii loo qaatay inaan anigu dawlad aaminsanahay, shabaab anigu dawlad uma aqaano, uma aaminsani. waxaan jeclahay, annagu oday dhaqameed baan nahay, siyaasiyiintu wax badan ayay jeceshahay inay is-adadkayso. shacbigii waxaan arkayay miidiya in la kiciyey, in la leeyahay nin dhiiggii dadka ku raaxaysanaya magaalada yimi. waxaan ka xumahay beelihii iyo dadkii soo dhaweeyey ee sida milgaha iyo maamuuska loo soo dhaweeyey ee aniga sharafta iyo milgaha ila dhinac taagnaa, in la xumeeyo soo dhaweyntoodii iyo dareenkoodii aniga lay tuso inaan dadkoodii iyo dhibtoodii aan ku raaxaysanayo. taasna waan ka xumahay. waxaan kaloo jeclahay haddiiba cidi dhibsatay hadalkayga waan caddeeyey, waan fikirkayga mabda'ayga caddeeyey. waxaan jeclahay shacbigayga si aan u kasbado oo shacbiga aanay dana siyaasadeed noo dhex marin aan ka duulayo, inaan raaligelin buuxda ka bixiyo arrinkaa.
haddiiba la dhibsaday ciddii dhibsatay ama dhibana ha ahaato ama ehel ha ahaato cid kastoo qaatay sidaa waxaan leeyahay umaan jeedin umana jeedi karo wax iga suuroobana maaha arrinkaa raaligelin baan ka bixinayaa. ciidanka PSF ee maamulka Puntland ayaa beeniyey wararka tilmaamayo inay heshiis la galeen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni isla markaasina ay aqbaleen isbeddelka uu madaxweynaha sameeyey. kooxda Siciid Deni taageersan ayaa waxay sheegeen in ciidanka PSF ay aqbaleen codsiga madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, balse ciidanka PSF ayaa sheegay in wararkaasi ay waxba kama jiraan yihiin oo aysan heshiis la gelin Siciid Cabdullaahi Deni, arrintana weli halkeeda ay taagan tahay. Deni ayaa isagana dib u celiyey ciidan uu dhowaan dul dhigay goobaha ay PSF-ta ka degan tahay magaalada Boosaaso. isimada hogaamiyaha dhaqanka Puntland ayaa dhowaan la xiriiray hogaanka ciidanka PSF-ta iyo Siciid Cabdullaahi Deni, labaduba waxaana ay u sheegeen inay mas'uuliyadda qaadan doonto ciddii gacanka hadal ka bilowdo, balse waxaa jira warar tilmaamayo in kooxda Aaran Jaan ay ka go'an tahay in awood ciidan lagu kala baxo. waxaa magaalada Garowe ay ka direen nin la yiraahdo General Jimcaale si uu PSF-ta ugu weeraro magaalada Boosaaso, kadib markii ciidankii halkaasi u joogay ay diideen in ay weeraraan PSF. General Jimcaale weli ma uusan tegin Boosaaso, deegaanada dhexe ayuu weli diyaar garow ka wadaa, laakiin waxaa la xaqiijiyey inuu ka cagajiidayo inuu dagaalkaasi hogaamiyo. ciidanka uu wato ma tira badno marka lala barbardhigo ciidanka PSF-ta. Siciid Deni waxaa la sheegay inuu la xiriiray ciidanka Maraykanka ee Africom oo iyaga bixiyo tababarka, saanada iyo tababarka la siiyo ciidanka PSF-ta oo hadda ka hor yimid habdhaqanka Siciid Cabdullaahi Deni. waxaase la sheegay inuu kala kulmay jawaab aan fiicnayn oo ah in uusan weerari karin ciidanka PSF-ta ayna ka saxan yihiin go'aanka iyagu ay qaateen. xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo shir jaraa'id qabtay ayaa aad u dhaliilay abaabulka gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cali ee ka dhanka ahaa Boqor Cusmaan Aw Maxamuud Buurmadow. boqorkani waa mid nabadeed, ma ahan nin looga shakisan yahay waxyaabaha aad ku jaa'ifeynaysaan, ayuu yidhi Maareeye. shir jaraa'id oo uu qabtay Maareeye ayaa waxa uu aad uga carooday hadalka lala beegsanayo Boqor Buurmadow oo uu sheegay inuu yahay nin aad u wanaagsan. xildhibaan Maareeye ayaa tilmaamay in Boqor Buurmadow uu raaligelin ka bixiyey hadaladii la dhibsaday, balse aad u moodo in laga shaqaynayo in la baabi'iyo oo arrimo siyaasadeed looga faa'iideysto xumaynta xiriirka beelaha Muqdisho iyo kuwa waqooyi. sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray in siyaasiyiinta weeraray Boqor Buurmadow ay u badnaayeen hal beel kuwa ka soo jeedo. wanaag ayaan u haynaa buu yidhi walaalaheen iyo dawladda aan ka tirsannahay, waana ammaanaynaa sida walaalaheenna reer Muqdisho ay u soo dhoweeyeen boqorka, balse iminka tallaabada la qaaday ee boqorka siyaasiyiin qaar ay ku weerarayaan ma ahan mid la aqbali karo, ayuu yidhi. raxiim xalay ilaa shalayto waxaa social mediaha ama warbaahinta bulshada ka socday waxyaalo runtii tacaddi weyn ku ah boqor annaka agtayada sharaf weyn ku leh oo runtii weliba dad mas-uuliyiin dawladeed ah ay aad iyo aad u abaabulayaan. hadallada ku jira warbaahinta bulshada ee boqorka laga sheegay oo aanu annakuna xogogaal u nahay, isagana weydiinay goob qadabeeleeda uu odaygu ka sheegay oo aan ahayn siduu hadalkiisaba caddeeyey intaanu ereyada hadda wax laga tabanayo aanu sheegin inaanu shabaab iyo argagixisada ku mabaadii ahayn. laakiin nasiib darro waxaa ah hadalladu intii doonto waxa laga tawdo, laakiin dariiqa brobagaanka ah ee beenta ah ee tacaddiga kuwa dhaqanka aan dhaqanka noo dhowrsan ayaannu aad iyo aad uga xunnahay. waxaad mooddaa dadka qaarkiis uu ka mid yahay guddoomiyaha amniga ee gobolka Banaadir inuu hab siyaasadaysan oo qorshaysan oo abaabulan oo fangaraysan hawsha u wado. waxaan filayaa boqorku inuu maanta hortay saxiitaan ka sameeyey ama dareenkiisu siduu ahaa bulshada Soomaaliyeed u fasiray.
waxaad moodaa in laga shaqaynayo wanaagga beelaha direed ee halkan boqorku yimid in la baabiyo wax siyaasadaysan ay yihiin in laga shaqaynayo xidhiidhka wanaagsan ee beelaha direed iyo beelaha muqdisho u dhaxeeya in la baabiyo si siyaasadaysan looga shaqeeyo waxaanu ka digaynaa in tacaddi dambe loo geysto boqorka iyo sharaftiisa boqorka waa la yaqaanaa boqor waxyaalaha ku jaayfeynaysan looga shakisan yahay ma aha waa boqor nabadeed East Africa oo dhan nabad ka sameeyey meel kasta oo dhiig ka socdo joojiyey ma dhici karto inuu dhiiri geliyo dhaqannada argagixisada ama wax ka aaminsan yahay wuxuu sheegay hadalkiisa ka hor buu sheegay dadweynaha muqdisho waanu muddo badan la wadaagaynay xanuunka ay u geysatay argagixisadu waxaanu leenahay yaan laydi khaldin siyaasadaha jira iyo doorashooyinka dana laga leeyahay yaan laydi ku khaldin sharafka iyo karaamada uu boqorku halkan ka mudan yahay Soomaaliya ka mudan yahay yaan dad wax magarata ah dhaawic xidhiidhka wanaagsan aan leenahay yaan dad wax magarata ah dhaawic dhaqanka muqdisho iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aanu xalay ka dareennay koox ahaan inay u abaabulan yihiin nagama qabato waxa ay xalay sameeyeen beel baanu ka dhex arkaynay inay u badnayd dadkii abaabulayay wararkii social media wanaag baanu haynaa dadka walaalahaya wanaag baanu haynaa dawladda aanu ka tirsannahay iyo dadka aan ka tirsannahay inay nabad iyo wanaag helaan boqorkuna taas buu halkan u joogaa sharafkiisa wax lama yeeli karo karaamadiisa dadaan gaadhin ma jaa'ifayn karaan waa ammaanaynaa sidii dadka walaalaha iyaga ee u badan muqdisho ay u soo dhoweeyeen boqorka markuu halkan yimid welina sidii bay aaminsan yihiin laakiin ninka xun ee weliba magaca dawladda ku qaraabanaya waa in laga qabto ummadda intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka tan iyo inta aanu dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminkii idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad geliyo